bulshada kala duwan ee xarunta gobolka Hawd ayaa iyo xildhibaanada ka soo baxay xisaabta mucaaridka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dhawaaqistii ka soo yeedhay maalintii darrada ee xukuumadda Soomaaliland ee ku aadaneed furida ururada siyaasadda ee dalka waxaana badankoodu soo dhaweeyeen in la furo ururada siyaasadda waxaan taageersanahay oo soo dhaweynaynaa ku dhawaaqista wasiirka warfaafinta ku dhawaaqay furista ururada dalka muddo badan bay soo jiitamaysay waqtigeedina waa la gaadhay waan soo dhaweynaynaa xisbiyada waxaan ku taageeranaa mudane madaxweyne sida fiican ee aad u soo abaabushay ama aad u hirgelisay awoodana ugu isticmaashay furitaanka asxaabta taasoo ay gaadhay xilligeedii aan ka qabnaa furista ururada anagu diyaar baan nahay in la furo maadaama ururadu ay in badan soo jiitamayeen oo ay jireen oo muddadoodina dhaaftay lana ansixiyay golayaashii hore ee sharcidinta ay ansixiyeen waxaanu leenahay haddaan nahay gobolka Hawd كل أنا قد ديار باوني فريستا حسبية إلا فرو ديار باوني كل كوه رأينا أنا فرينا بعدين قبل كودني. أنا بانو تاجر سنة حسبية أو الرضا يلا فري وأنا سود وينينا قعمة فري ما نكون سود وينينا. هذانو نهاية اللي يرد قبل كهود وحنو تاجر سنة هاي وريكتدا كصوب حداي وزير كوزارة ورفافنتا رقم كي وعد قلت سوماليلاند in la furayo ururadii siyaasadda aad baan anagu taageersanahay haddana dhalinyarada gobolka Hawd waana soo dhaweynaa sidoo xildhibaan Cabdikariin Cabdiraxmaan Madar ka soo baxay xisbiga Ucud ayaa si diiran uga hadlay furida ururada siyaasadda waxaan ugu baaqay asxaabta mucaaridka in ay tartamaan oo ay sharciga u hoggaansamaan dalka u yaala bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam runtii anigu saaka waxaan u soo istaagay halkan inaan ka hadlo qodob sharci ah runtii waxaan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Bilugubadle soo baxnay xildhibaanada golaha deegaanka waxaan ka soo baxnay xisbi mucaarid ah runtii waan arkaa in xisbigeeyagii iyo xisbiga wadaniba ay diidan yihiin in la furo asxaabta siyaasadda ama ururada xukuumadduna waanu aragnaayo inay soo dhigtay in la furo ururada siyaasadda runtii dalkan oo khalkhal uma baahna xildhibaano la kala jiito uma baahna waxaan ku yiri feeriya laad la isla dhaca uma baahna amni darro uma baahna runtii anigu waxaan taageerayaa dalku wuxuu leeyahay shuruuc iyo system lagu dhaqo dalku wuxuu leeyahay dastuur buu leeyahay haddii xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynuhu ay ku tumanayaan dalku sharciyadii uu lahaa iyo systemkii uu lahaa iyo dastuurku lahaana ha lagu tunto xildhibaanada golaha wakiilada hal kala jiito haddii lagu dhaqmaayana ha loo eego shuruucda dalka iyo systemka dalka iyo dastuurka dalka haddii laakiin afar siyaasi oo ka soo jeeda beelaha Soomaaliland ay doonaan inay dadka dhexdiisa ku loolamaan oo amni darro dalka u horseedaan ka yeelimayno anigu waan taageerayn xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka midna waxaan taageerayaa in loo eego shuruucda dalka iyo dastuurka taasaanu ku qanacsanay haddii ay tahay in la furo xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo dastuurku sheegayo xilligeedii ay taagantahay waxaan leeyahay xisbiyada mucaaridka war tartama rag baa tiine oo rag iska celiya haddii aanay dhigayna xukuumadda waxaan leenahay ka daaya